magaca Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxda Barakeysan. Sidoo kale magaca Eebbe waynu ku bilownaa, kadibna nabadgelyo iyo naxariis ha ahaato korka dhammaan rususha, ambiyada, malaa'igaha iyo annaga oo dhan intii dooran. Daawadayaasha qaaliga ah, kusoo dhawaada taxane cusub oo Psalmka barakeysan ee David u turjumaya af Soomaali. Madhabta diinta Kiristaanka ah ee Psalmka barakeysan, qaybta koowaad iyo qaybta labaad labadaba waan idiin soo gudbin doonaa. Waxa weeyaan sharaxaadyo iyo tafsiiryo iyo gabayo ku saabsan Psalmyada barakeysan. Waxay ku socotaa dhammaan dadka niyadda wanaagsan. Waxaa iga dhaadhacsan in aadanuhu ay tahay inay bartaan, inay ku dadaalaan inay xiriir wanaagsan la yeeshaan dhammaan dadka, iyo sidoo kale inay bartaan ixtiraamka iyo naxariista. Fiidiyowyadani waxay u heelan yihiin dhisidda xiriirada noocaas ah, iyadoo lagu saleynayo ka maqsuudista iyo Psalmyada barakeysan ee David. Haddaba hordhac ayaa bilaabanaya. Waxaan si fiican ugu warqabaa fahamka kala duwan ee hal qoraal oo barakeysan oo ka jira hal diin. Xaaladda Kiristaantiga, iska badaa fahmyada kala duwan ee diimaha caalamiga ah ee jira u dhexeeya dadka diimaha kala duwan leh. Si kastaba ha ahaatee, waxay ila tahay in aadanuhu ay tahay inay bartaan, inay ku dadaalaan inay xiriir wanaagsan la yeeshaan dhammaan dadka, iyo inay bartaan ixtiraamka iyo naxariista. Fiidiyowyadani waxay u heelan yihiin dhisidda xiriirada nooca ah, waxaana daawadayaasha ka codsanayaa inay u cudur daaraan qanac la'aan kasta oo ku jirta faalladayda, iyo sidoo kale isticmaalaan fiidiyowadan sidii caawimo cibaado si aad u dhistiin xiriirkaaga shakhsiyeed ee Ilaaha Qaadirka ah, iyo si loo sii xoojiyo fahamkaaga iyo naxariistaada. Waxaan u yaboohayaa tafsiirkan sharaxaadda iimaankayga shakhsiyadeed ee ku aaddan Ilaah David, Aabbaha iyo Ifaalaha dhammaan dadka B+ka ah. Waxaan ku daray qaybo ka mid ah Baybalka barakeysan, New Living Translation NLT. Mararka qaarkood waxaan ku daray sharaxaadyo yaryar si ay ugu habboonaadaan macnaha guud. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku dhiirrigelin lahaa daawadayaasha inay daawadaan fiidiyowyada oo dhan ee Psalmka barakeysan quduuska ah. Waad mahadsantihiin, daawashadaad ku mahadsantihiin. Cashirkeennii koowaad ee Psalmka halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. Fadlan rukunso kanaalka
si aad u hesho fiidiyowyada mustaqbalka ah waqti sax ah. Qaybta labaad iyo qaybta koowaad waa taasa. Magacayga waxaa la dhahaa Robin Aadan. I am African American natural Christian. Please join me in this series. See you. Bye.